qoraalaha oo maamulka koonfur galbeed ka soo saaray arrinta khaliijka ayaa lagu yiri go'aankan waxa uu u laabanayaa mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya 6 Juun 2017 ka qaadatay xasarada siyaasadeed ee khaliijka kaas oo aan wada tashi ku iman sidoo kale waxaa lagu sheegay bayaanka ka soo baxay koonfur galbeed inuu saameyn ku yeelan doono shacabka Soomaaliyeed go'aanka dowladda federaalka ay ka qaadatay arrinta khaliijka ee ah dhexdhexaadnimada waxaan ku cadaynay ayaa lagu yiri warmurtiyeedkan shirkii hogaamiyaasha ee July 2017 lagu qabtay Muqdisho in Soomaaliya go'aankii loo baahnaa aysan ka qaadan xasarada khaliijka iyadoo laga eegayo xiriirka taariikhiga ah iyo kan istiraatiijiyadeed ee Soomaaliya kala dhaxeeya Imaaraadka iyo Sacuudiga waxaan cadaynay in Imaaraadka iyo Soomaaliya ay ka dhaxeeyaan xiriir qarniyo soo jiray dhaqan iyo mid dhaqaale waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan in tobanaankii sano ee ugu dambeeyay Imaaraadka uu ahaa saaxiibka ganacsi ee ugu weyn Soomaaliya dowladda Imaaraadka Soomaaliya waxay ka caawisay intii dhibaatada ay ku jirtay dhinacyo ay ka mid yihiin gurmadka bini'aadanimada caafimaadka iyo arrimo kale Soomaaliya iyo Sacuudiga waxaa ka dhaxeeya xiriir ka soo bilowday bilowgii islaamnimada oo ay weheliso mid dhaqan dhaqaale oo casri ah waxaa lagu yiri qoraalka waxaan walaac ka muujinaynaa in Soomaaliya ay luminayso saaxiibadaasi khaliijka ay ku leedahay inta kulanka hogaamiyaasha uu soconayay ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah dowladda waxay codsatay waqti ay dib ugu qiimeynayso go'aanka ay ka qaadatay arrinta khaliijka waqtiga dowladda looga baahnaa in ay mar kale ku muujiso mowqifkeeda oo dhammaaday koonfur galbeed ma haysato doorasho aan ka ahayn inay taageerto go'aanka Imaaraadka iyo Sacuudiga iyadoo eegayso dagaalka ballaaran oo ay kula jiraan sida lagu yiri warkan waxaa sidoo kale oo ay ku taageertay arrinta hadda khaliijka ka taagan